lugtii ugu dambeysay ee safarka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku marayay wadankan Zambia ayuu ku gaaray magaalada Indoola ee gobolka Copperbelt oo ah magaalada madaxda labaad ee wadankan Zambia ahna meesha ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida wadankan Zambia safarka musharax Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku gaaray magaalada Indoola ayaa waxa ku weheliyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya wadankan Zambia Ambassador Maxamed Xasan Dawaara mas'uuliyiinta jaaliyadda iyo waliba dadweyne fara badan oo ka soo raacay dhanka magaalada caasimadda Lusaka waxaana isla maanta xaflad si weyn loo soo agaasimay taageerona loogu muujinayo musharax Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay ka dhacday isla magaalada Indoola anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Zambia Somali Friendship Association ee Zambia xafladan waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta mudane ra'iisul wasaare Gaas oo ah ra'iisul wasaarihii dowladda federaalka ahayd ee Soomaaliya run ahaantiina professorka lagu xasuusan karo sidii bilagii uu sameeyay roadmapka oo laga saaray dowladda ku meel gaarka ah looguna gudbiyay dowladda rasmiga Soomaaliya ku soo dhawow dadkaagii iyo ummadaadii mudane ra'iisul wasaare mid ugu horeysa ra'iisul wasaaraha wuxuu mudan yahay runtii ammaan fara badan oo mujtamaca Soomaaliyeed dhexdiisa uu ka mudan yahay waxaan xusuustaa qoraaho kuwiisii ka mid ah waqtigii xilka uu ka degay oo la wareysanayay janaalada Soomaaliya mid ka mid ah waxyaabaha aad ka walwashay intii aad xilka haysay ama ku dhibi jiray maxaa ka mid ahaa baa la weydiiyey Cabdiweli Gaas wuxuu yidhi waxyaabaha aan aad uga walwalo habeenkii ka seexan jireen haddana ilaahay aan inuu wax iga qabsado aan ka cabsanayo waxaa ka mid ah anoo wasiirkii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed ah oo xilka ummaddu ay dusha iga saaran tahay madaafiicda ku dhacaysa bakaaraha iyo ummadda Soomaaliyeed ee shacabka dhexdooda ee aan talada ku lahayn in lagu rido waxyaabaha qiyaamaha ka cabsanaya ka mid tahay wiil in la iga qabsado hadduu Cabdiweli gayay inuu Soomaaliya hogaamiyo Puntland uu gayay inuu hogaamiyo dhanka kale safiirka Soomaaliya oo fadhiya wadankan Zambia Ambassador Maxamed Xasan Dawaara ayaa uga mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Indoola sida weyn ay u soo dhaweeyeen wafdiga waxa uuna si rasmi ah hadalka ugu soo dhaweeyay musharax Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa naga guddoontaan salaan kal iyo laba hor iyo horaan waxaanu bogaadin iyo mahadcelin idinka mahadcelinaynaa sidii kalgacalku ku dheehnaa ee aad u soo dhaweyseen mudane Cabdiweli ra'iisul wasaaraheenii hore iyo waftigii la socday waxaa mahad mudan guddida qabanqaabada oo u shaqaysay si ay ku dhaahan tahay diifooni iyo xagxagsanaan waxaan uga mahadnaqaynaa ilaa maalintii aanu nimi Indoola sida ay noola garab taagnaayeen ha dhicina ha jabina sida miidiyaha ugala socoteen dalalkii uu soo maray mudane Cabdiweli ra'iisul wasaaraheenii hore dhammaan waxaa lagu soo dhaweeyay si diiran oo kalgacal ku dheehan yahay oo aan ka hinnayn sida Indoola noogu soo dhaweyseen waxay cabirayeen bogaadinta iyo mahadcelin ay uga hayeen dawladdii uu hogaaminayay mudane Cabdiweli kartidii ay ku shaqaysay iyo badbaadadii ay ummadda Soomaaliyeed ka badbaadisay gudnimadii maldahsanayd ee hadoodilayd xukuumaddaasi dadku wuxuu tilmaamaa roadmap waxa weeye higsashada hilinka iyo hoonta marnaba hadda inaan ka hadlo roadmap iyo wixii la soo qabtay iyo badbaado qaran waqtigeedii waxaan leeyahay waa passé waqti waxa weeye waan soo qaafnay dowladdii ka dambeysay hadda hal sano jirta marka inaan wax badan ka ilaahdo ma rabo wixii badbaado qaran ay samaysay oo wanaagana mahaddeeda waxaa iskale ilaahigii raxmaanka ayaa iskale isagaa nagu aadiyay wixii taloo wanaagsan wixii khalad oo aan gallay ma isagaan dembi dhaaf iyo cafs ka weydiisanayna waxaan u baahannahay marka where do we go from here hadda xaggee baan u soconnay xaggee baanu aadayna waxay u baahan yihiin isbedel dhali inuu ka yimaado Puntland mid dhaqaale oo aan isleeyahay qodobka koowaad weeye sidoo kale nabadgelyo dadka Puntland inay security ay ku seexdaan nabad ku soo toosaan
cadaalad helaan dambiilaha yani la mariyo dambigiisa dadku kala nabad galo wadajir iyo walaaltinimo iyo daris wanaag lagu wada noolaado in laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay sidoo kale sida aan sheegayay yani infrastructure development macnaha waxyaabaha dekedaha jidadka iyo airportooyinka kuwii hore u jirayna in runtii la dayactiro la maalgeliyo kuwa kale oo tiro badan sida wadooyinkan wadaagsin iyo dekadaas garacad iyo dekadaha kale oo la asqoray iyo meelo kaloo badan in laftigoodana loo helo maalgelin iyo dibdhis loo helo haddii la yidhaahdo. Saciid Muuse Daahir, Universal TV, magaalada Indoola.